Hackerka ugu halista badan adduunka waa kuma hackerka u dhashay Algeria ee ka yaabiyay sirdoonka Mareykanka cabsidana ku abuuray argagixisada Yuhuudda. Ma ahi qof la raadsanayo, mana ahi argagixiso. Erayadaas waxaa naftiisa ku difaacay halyeyga Algeria ee lagu magacaabo Hamza bin Dallaaj. Wax yar ka hor intaanan lagu xiran Amerika sanadkii 2013 kadib markii uu ka mid noqday hackerska ugu halista badan adduunka. Xilli bangiyada Yurub iyo kuwa Amerika ay ku eedeeyeen jabsashada wax ka badan 200 oo bangi oo daafaha caalamka ah. Arrinkaas oo keenay in shirkado badan khasaaraan wax ka badan malaayiin dollar. Sidaas oo kale si la mid ah wuxuu jabsaday bangiyada Yuhuudda. Sidoo kale wuxuu jabsaday hawadana ka saaray 8,000 oo ciwaan oo Faransiis ah. Hantidiisana waxay gaartay 4 bilyan oo dollar. 300 oo milyan oo ka mid ah lacagtaas wuxuu ugu tabarucay hay'adaha samafalka ee ka howlgala Falastiin. Sidoo kale wuxuu jabsaday qunsuliyado Yurubyaan ah isagoo fiisooyin bilaash ah u qaybiyay asxaabtiisa si ay ugu safraan. Wuxuu kaloo gurmad iyo garab istaag siiyay dowlado Afrikaan oo faqiir ah. Wuxuu soo jiitay indhaha dhalinyarada Carabeed waxayna u arkayeen inuu yahay halyey lagu dayan karo. Balse warbaahinta reer Yurub khaasatan midda Amerika ayaa ku tilmaamtay tuugnimo iyadoo u diiday geesinimada. Laakiinse Hamza bin Dallaaj arrinkaas kama aysan hor istaagin dhowla caddeyntiisa qurxoon. Hamza bin Dallaaj wuxuu iska diiday inuu Yuhuudda iyo Amerikaanka ka caawiyo inuu ciwaanadooda uga ilaaliyo jabsashada. Inkastoo maxkamad Amerikaan ay u jeedisay eedeymo xunxun kuna xukuntay 15 sano oo xabsi ah. Waa kuma Hamza bin Dallaaj? Sanadkii 1988 ayuu ku dhashay Algeria wuxuuna wax ku bartay jaamacadda Baabu Zawaar ee Algeria. Isagoo 20 jir ah ayuu soo galay dunida hackerska. Hamza bin Dallaaj markii hore caan kama uusan ahayn social media, balse 2013 ay booliska Thailand oo kaashanaya Interpolka caalamiga ah ku soo xireen caasimadda Bangkok isagoo lagu soo eedeeyay ku lug lahaanshiyaha dambiyada internetka. Xilligaasna waxa uu watay laptop iyo telefoon oo kaliya. Markaasna warbaahinta ayaa sheegtay in Hamza uu ka mid yahay 10 qofood oo la raadinayay ka hor intaan la geynin gobolka Georgia ee dalka Mareykanka, kaasoo amray in baaritaan lagu sameeyo. Balse Hamza wuu diiday eedeymaha loo jeediyay. Sidoo kalena shir jaraa'id oo loo qabtay in lagu shaaciyo gacan ku dhigidiisa ayuu ka yiri, ma ahi qof la raadsanayo, mana ahi argagixiso. Laakiinse maxkamadda Amerikaanka ayaa ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay dembi ah inuu la shaqayn jiray hackerka Ruushiyaanka ah ee lagu magacaabo Andrey Fijbanin, kaasoo faafiyay fayras keenay khasaaro weyn oo soo gaaray hay'ado iyo shirkado daafaha caalamka ah. Sidoo kale fayraskaas wuxuu saameeyay boqolaal kombiyuutarada oo Amerika oo kaliya ah. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ayaa Hamza iyo saaxiibkiisa Ruushiyaanka ah ku eedeeyay tan iyo 2009 inay sameeyeen fayras lagu magacaabo Spy A. Sidoo kalena ay ka shaqeeyeen sidii ay u gelin lahaayeen internetka. Eedeymahaas waxaa sii xoojiyay booliska Thailand oo sheegay in Hamza uu qirtay inuu jabsaday nidaamka bangiyada Mareykanka. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu awoodo jabsashada wax u dhexeeyo 10 ilaa 20 milyan oo dollar. maadaama fayraska uu samaystay uu awoodo inuu galo meel walba baasweer la'aan. Waxaa jiray warar sheegaya in garsoorka Mareykanka uu Hamza ku xukumay dil toogasho ah, balse arrinkaas waxaa beeniyay madaxda Mareykanka. Hamza wuxuu iska diiday dalab uga yimid Israa'iil. Wiilkan dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Hamza bin Dallaaj wuxuu kaligiis jabsaday xogta 217 bangi isagoo ka qaatay lacag dhan 4 bilyan oo dollar, taasoo u dhiganta miisaaniyadda dowlado faqiir ah. Wuxuu garab istaagay hay'adaha samafalka ee Falastiin iyo kuwa wadamada Afrika ee faqiirka ah. Ciwaanada uu sida tooska ah ula wareegay gacan ku hayntooda waxaa ka mid ah ciwaano ay leeyihiin argagixisada Yuhuudda.
ee xoogga ku haysta Falastiin, isagoo daaha ka qaaday sirta ciidamada Yuhuudda. Sidoo kalena wuxuu daabacay xogo muhiim ah heer warbaahinta Falastiin ay soo guuriyeen inuu yiri: noloshayda oo dhan inaan xabsiga ku dhammaysto ayaa iga fudud inaan garab siiyo dambiilayaasha. Haddiise aan ahaan lahaa qof xor ah, waxaan garab siin lahaa Falastiiniyiinta si ay uga adkaadaan cadowgooda.